السلام عليكم دمان شعب كصومالية ميرول بيجوغان فرين يا فاميلي انت فيلم كان محياتي شيء برنامج كان داون دونتو انت انا هراء داون كنا كالك السوق يبقلين وحان إذن كعصنا إياه إن أسمك سبسكرايب كنو صارتان وبكري لأهي لايك تشير كوادين عينا أدبان إذين وذا السلامية وانتو وحان dib idinku soo noqonay barnaamijka taxanaha noo ahaa ee ku saabsanaa dhacdadii xanuunka badnayd ee ka dhacday markabkii goobweyn oo ay u bixiyeen dadkii saarnaa geeri badan waxaan jeclahay in aad barnaamijkan taxanaha ah iyo kii daraato aan idinla wadaagay ee walaasheen Maryan iyadana dhacdadii iyada sida qaaska ugu dhacday intaba taxanay noo ahaan doonaan maanta waxaan idinku soo xijiyay qaybtii labaad dhacdadii markabkii geeri badan walaashay farxiya ayaa diyaar inoo ah oo iyadu ka mid ahayd shacabkii saaraa markabka farxiya inaan sii hanbaqaadi doonta haddii alla idmo farxiya waxay ka mid ahayd shacabkii saaraa meesha ee dhibaatada iyo waxyeelada kasoo gaartay qaar ka mid ah walow ilaahay iyada ku badbaadiyo ay ka mid tahay dadka nool waxaa kaleetoon idin haynaa barnaamijyo kaleeto oo midba midka kale ka xanuunsanay waxaan sidaa u yeelaynaa marka aan idinkugu soo gudbinaynaa dhacdooyinkan bal aan dib isu xasuusano maxaa inagu dhacay maxaa ina soo maray raalliga ahaada xoogaa shanqaraad inaan maqlaysaan aan u malaynaya waa idinka yarayn doonaa aad idinkoo u mahadsan waxaan idin leeyahay janaalka Sahra Qaran media la soo xiriira waxaad ka heli doontaan dhacdooyin yacni dagaalkii 88 ilaa iyo 91 dalkeena ka dhacay wixii ka dambeeyay iyo khasaarihii dhibaatadii dhacdooyinkii xanuunka badnaa si aan ila wadaagtaan la xiriir barteena YouTube Sahra Qaran media waad mahadsantihiin waxaan mar walba idin doonin doonaa dhacdooyinka ay sababeen dabaylihii colaadeed ee dalka Soomaaliya ka dhacay walaashay farxiyana diyaar ayay noo tahay qaybtan waa qaybtii labaad ee barnaamijkii dhacdadii markabkii geeri badan farxi salaamu calaykum عليكم السلام سهرو وبسلام يا آدم وسلام أباه ودونهاي dhacdadii yani qaybtii koowaad waad ogtahay shacabka qaar badan oo feedback ka soo bixiyaan arkaynay oo ku wada salaamaya kula yani hore u soco farxiyoy maxaad leedahay shacabkaas aad iyo aad baan salaamayaa walaalahey shacabka Soomaaliyeed baan salaamayaa markabkii goobweyn iyo qisadiisii la wadaaga soo dhawaada in leeyahay aad bay u dhow yihiin aad baan kaaga qaadnay aad baan kaaga mahad celinaynaa hore u soco waxay noo maraysay markabkii oo furtay markabkii marka sidii uu ku soo dhaqaaqay wuxuu soo dhaqaaqay sagaashan iyo labadii bishii saddexaad waa garta wuxuu soo dhaqaaqay subaxii habeenkii aniga waxaan soo koray taariikhdu 3 bisha waa garta wuu soo dhaqaaqay markabkii badii ilaa aan ka imaano badi weyne dadweynta horta dadkii oo dhan way baqaayeen aad ayaa loo baqaayo goormee 7 iyo wax leedinka daba keeni doona ayaa la lahaa mugtay waa garta alxamdulilah ilaahay wuu nagu soo nabad yeelay waan ka soo baxnay muqdisho 6 maalmood ayaan waxaan kusoo soconay Yemen dalkii Yemen waxaan soo galnay magaalo la yiraahdo Mukalla waa garta intaan soo soconay waa inuu kabtanka u sheegaa uu yiraahdaa dad Soomaali ah qaxooti ah ayaa soo wada ku soo socday Yemen marka wax meeshii Carabi yaqaan ma saarnayn wuxuu sameeyay dad waxaan wadaa ayuu yiri maadaama dadkiisa laga soo tagay wuxuu yiri waxaan wadaa dad burcad ah waa garta marka afka Carabigu hadalkii luqadda halo intii waxaan taaganahay Mukalla oo waxaan rabnaa inaan ku xirano farxiya codka hal mar buu kaa go'ay maxaa yani afka carabiga yani dad yaqaano ma saarneen baa nagu tiri hore ka soco ma saarneen dad luqadda yaqaano carabiga yaqaano asagii bas ninka markabkii waday kabtankii ahaa Badar ayaa wuxuu yiri
دوائنا وشيغا meeshaan ku socono Yemen aan u sheegaa iraahdaa dad qaxootiya wada laakiin beenay noqotay oo si wuxuu u sheegay yani kale wuxuu yiri dad hubeysanaan wadaa meeshaas waxaa lagu yiri nooma soo dejin kartid wax dad hubeysan iyo dad kaleba Soomaali oo dhan marab okay aan ka dhax galo in marka in waxa tiri ninkan Carabi anaga Carabi ma inaan aqoon qoladii Carabta wuxuu u sheegay in dad burcad dadka markabka saaran miyay isugu jireen burcad iyo dad shacaba mase burcad kaligeed bay ahaayeen inta dadka ahaayeen waa konton qofood waxa burcadka ah kontonka qofoodna kontonkiisa kale too joogaan dhulka ayaa laga soo tagay asaga markay soo fuulayeen oo qoryaha tuurayeen la socday wuu jeeday haye saas darteed uu aamusay hadduu hadlano ama lagu dilaayo isii moogtaa laakiin si kaloo Soomaalidu u lugoynay waa garta markay soo gaareen meeshaan la rabay inay ka tagtaan iyo wuxuu sameeyay wuxuu yiri burcadan sida aniga buu isku jiraan dadka ugu talagalay markabka waa laga soo tagay haye intii weydiitay waxay dhaheen anaga dad burcad iyo wax kale Soomaalida ma barabnay aan noo soo gelin haye xagee joognaa anaga badda dhexdeeda taaganaa bartankii waxaan taaganaa badweynta marka wuxuu wax yaro biyo soo qaateen markabkana ma ahayn markabka biyaha safeynay anaga markaa soo fuuleen waxaana lagu yiri biyo soo qaata wax yaro biyo soo qaadanay biyo yaray aan soo qaadanay way naga dhamaadeen markuu wuxuu yiri biyo ma haystaan dadkii hadii aan meesha doontidiisay dhaheen biyo yar haye iyo wax yaro timir ah ayaana loo soo dhiibay waxaana lagu soo dhiibay markabka markuu dhaqaaqayo bahal siiyo ungufa la yiraahdo ma aragti kaas xoog lena lagu sii biyihii iyo wax yaroo timir in lagu keenay markaasay noo bilaabatay dhibaato waa gartay okay daaqli markaa la idin siiyey oo Yementaa kale idin siisay sida aan qabo biyaha iyo timirta la idin siiyey shacab badan aad ku saarnaydeen bal tiradii horta dadka aad ku saarnaydeen ku soo celi in ma idin wada gaartay shan kun aan markabka xooluhu ah ma ahayn markab oo guryo leh 5,000 oo dad aan ahayn dadkaas isdul saareen waa la jiifa hataa waa lagu fadhiyaa haye laba doorna uu ah kor iyo hoos 5,000 oo dad ku jira haye ma fahantay markii wixii yaraayo biyi aan soo qaadanay ilaa mukalla markaan soo gaarno qof walba jirgaana yar soo qaateen biyi way naga go'een marka wax yaro biyo noo dalbay biyihiina loo keenay iyo timirtii markii meesha timirtii biyana lagu keenay dib ma lahaateen qasaaruhu noo geystay ka badnay jugti markabka naga dhaqaaji dadkan xoogi uu jug noogu soo siiyay marka ku duleeshay noo hoos ku duleeshay yaa jug idin siinaya marka u faahfaahay dadka gufaha la soo dirayo biyihii noo keenay gufaha maybe waxaa la yiraahdaa baan malaynaya doomaha yararka ee dadka wax loogu keeno taasaa jug idin siisa doon ma ahayn haye waay markab sidiisaba markuu soo furanayo waxaa jiro bahal oo sidii doon oo kale u samaysan oo markabka soo wada ilaa dadweynta keeno markabka dikada markuu kasoo baxay xataa kaasa xoogaa soo waday waa gufaha la dhahaa anaga kale saa u naqaano gufaha hada luqad kale uma aqaano si kale Soomaalidu waa yani wax badan waa sax luqado badan jira laakiin anaga gufaha u naqaanaa bahalkan markabka markuu soo dhaqaaqayo soo riixa marka si xoog leh xaasinimo lahayd jug uu noo siiyey mogtahay haye markabka wuu dilaacay haye hoos u dilaacay markabka baaba degi lahaa biyo badan aa soo galay markabkii markaasaa meeshii lagu kala yaacay markabkii meeshii waxaa la damcay in la habeeyo oo yani wax la marmariyo biyihii meeshii kasoo galayeen la xiro waa gartay inkastoo sidii la rabay aysan u xirmin baddi dhexdeedaan saa u taagnin habeen imaanin 2 maalmood kale haye meeshaasa waxay leeyihin haddaanan ka dhaqaaqin markabkaan barogaynaaba Yementii baa idin dhahaysa Yementii aa noo hanjabayso ciidan booliis ee markii dambe soo direen oo noogu yimid meesha ka dhaqaaq meeshaan ka dhaqaaqa meeshaa doon ninkii markaasi sheeka la xumaad wuxuu leeyahay aniga dadka intay geeyay ilaa asaga naftiisa u daran dadkii xaggeen geeyaa dadkii meeshaa doontid geeyo annaga Soomaalina ma rabno waxaan rabnona male burcadna ma rabno mooryaanta aasitay adigoo meeshaa doontii iskala baxa haye
dhibaato markaasay noo bilaabatay marka annaga farxiyo adoo aada u mahadsan marka aan markabka gudihiisa kusoo noqono iyo nimankii burcadda ee xoogga kusoo koray waxyeelo ayaga markaas ka hor waxyeelaha ma idiin geysanaynin ma noo geysan waxyeeladu waxay bilaabanaysaa markaas iyo wixii ka dambeeyo markaas waxaan taaganahay annaga wax meeda ma jiro wax naga hal naagaa naga dhimatay markaas oo tii alla u timid waa karta oo islaan weyn oo dayahay hashaas naagaa naga dhimatay bas markaas aan taaganahay mukalla haye marka wax meeda markaas ma jiro biyihii annaga aan sidana way naga go-een biyihii yamantana siiyana iska haysanaa laakiin badweyntii aan taaganahay marka korkuu ka furan yahay qoraxdiyaa si toos ah noogu dhacayso waa garta naga dhaqaaqna waa la leeyahay bartaas aan noo taagnaanina 2 maalmood kale markuu meesha sii taagnaayo ciidan hubaysana noogu yimid ka dhaqaajiyaa leeyahay dadkaan meesha haddaanan ka dhaqaajin marka waa rogaynaa marka meeshii ninkii wuxuu nagu tala darsaday yani dadkii la tashaday markaan asaga meesha ku dhinta ma rabo wuxuu yidhi waxaan samaynayaa xalka ii furan cadan ayaan idiin weydiinayaa oo aan dhahayaa dadkaasa sidaa qaxootiga ah waa idin dalbaa mar labaad waayahay dadkii hadda luqadii carabiga ma yaqaaniin okay marka mukallad aad markaa joogtiin cadan buu idin wadaa markan haddana cadan inaan haa dikada cadan inaan ku xirano hadan tii mukalle eed inaan ku xirano waa nalaga diiday maho isagaan sheekada ku dheeyo yiri dad waxaan wadaa burcad ah haye welina wuxuu leeyahay haddana meeshaas haddana idin dalbaa umana hadlaayo sida uu annaga noo sheegaayo waa garta mukalle iyo cadanna waa isla wadanka haye jaa mukallaba looga soo sheegay markuu la hadlay waxaa leeyihi waa naloo soo sheegay akhbaartiina waa haynaa markabkaan nooma imaan karo waa soo waxay soo qaateen marka burcadii waxay sameeyeen bilaabeen midiyay soo qaateen kabtankii aa lagu qabtay waxay dhaheen ilaa waa ina cadan ku xiranaa war dadku waa idin diidan yihiin haye naga dhaqaaji mukallab mukallaan kasoo dhaqaaqnay maadaama markabku meyd saaraya waa isla wadankii u fiirsa hadalkeeda wadankii waayo ma ahayn inuu usoo socdo habeen imaanna usoo socdo isagoo mukalla iyo cadan bay ahayd in wax yar saacadooyin loo soo socdo waa isla wadankii maxaa koosgareeyey meydkaan reerkii meydkaan laga dhintay waxay dhaheen annaga badda inaan ku ridno marabno banaanka rabnaa inaan ku duugano haye meydkii ayaa wuxuu nagu sameeyey markabka wuu socon waaya hal habeen iyo hal maalin baddi kusoo jirna haddana mukalle iyo cadan haye cadan markaa imaanay badweynta taagana haddana cadan way diideen waxay dhaheen ma soo degeysiin naga dhaqaaqa kuwii horaaba ronaa biyo yarna soo siiya laakiin kuwan waaba diiday inay waxna na siiyaan xageengayaa badda ku shub marka wuxuu yidhi wax ma idiin sheegaa soomaaliya haa aniga iyo shan nin oo isaga uu watay ayaa degayn haye waan argayaa cadantii waa la soo xaaltamaa si aan idinku dejiyo raggaasaa u tegayaa doonaa saaran marka guddoontaasaan dejisanayo haye soomaalidani waxay sameeyeen adiga haddaad degaysad ay dhaheen kabtanka labaad nagama degaayo haye 5 qofood oo kale awood wado asaga dadku watay rabay inuu ka baxsado markaa soomaalida ugu baxsado meesha haye isagaa waxaa layidhi marka adiga haddaa bixiis kabtanka labaad noo reeb kabtankii labaad sidii ku reebay waxaa dhacday marka 5 qofood oo kale asaga dadkiisa ahaayuu kaxaystay doon yaroo saareed marka kuu soo degsaday cadan sidii ku aaday suuq u baxay mu nagu soo noqon marka haye biyihiina waa naga goosteen raashinkaa wadana waa iska yaaleen raashin qof ooman raashin ma cuni karo qof haraadsan oo oon haayo biyo dhahaayo ma cuni karo markaasay bilaabatay dhimashada okay intaan dhimashada aanan u gelin nimankan marka ninkan aad sheegtay hadda waa degay aadhays oo kabtanka markabka iyo ku-xigeenkiisa ma muwaladiinteenii soomaaliya ay ahaayeen mase carabta caadiga ahayd muwaladiinteeni waaye kabtankii koowaad muwaladiinteeni ahay iyo wixii la degayba dhanba waa soomaali laakiin waa muwaladiinta soomaaliga ku hadlaysa ilaan anaga af soomaaliya nagula hadlaayay eegana af carabiga kula hadlaayay waa gartay in aan ka soconno marka nimankan way degteen 5 ayaga ka mid aha degtay kii ahaa
ku-xigeenkiisii baa idiin haray ku-xigeenka marka annagoo sheekada aan u guda galay ilaa aqiirankii ma idinla jooga mase asna waa idinka tegay maya isaga ilaa ugu dambeys buu nala joogay ilaan hal doon le saarnad markabka hashi doone ninkaana ku baxay muxuu ku baxaa badweynteena taaganahay waa maya ha ku-xigeenkaan reebanay ku-xigeenkiiya meeshii noo jooga ku-xigeenkii markuu soo noqon waaye uu meesha aan taagnayn wey oo wax noo soo juuqa aan weyne oo dadkii saa u dhammaanayaan midkii bilowday la dhimanaayo biyo la-aantii kuulaylka qoraxdii saas noogu soo dhawaatay markabka kor ka furan yahay guryo ma lahayn markabka xooluhu ahaa aan meesha ku rafaadsanahay ee haddana ku-xigeenkiya mindi lagu qabtina waxaa la yidhi dhaqaaji meel un xeeb ah meel xeeb aleenike wuu soo wareejiyey markabkii wuxuuna keenay meel la yidhaahda xiswa xiswa suu usoo xoogsanaya markabka usoo xoogsanaya ilaa uu ka qallocdo wuxuu gadoomi rabaa markabkaan haddaan saa kusii wado waa gadoomaya bas waa dhamaanay dhamaatay yacni markabka markaas baydkiibaa ku badanaya markii uu yani markabka u xoogsanayo maya markabka jawaabna lama soo celinin 6 maalmood badii aan kusoo jirnay ilaa iyo mukalla haddana 2 maalmood meeshii mukalla aan sii taagneen week hadda waxaan sii taaganahay cadan adiga waqtigii saasaa marka dadkii biyo la-aantii iyo rafaadkii meeshii markii fiidkii ku bilowday ciyaalkii yaryara ma xamili karaan qoraxdaas iyo haraadkii badnaa sidoo kale okay aad baa umahadsan tahay farxiya yani sheekada inteedii xanuunka badneyd sida aan filayo waa ay dambaysaa shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in dhacdadan iyo kuwa ka xanuun badan oo dalkeenii ka dhacay shacabka soomaaliyeedna ay ku dhaceen waa qaybtii labaad ee ay farxiya inoo waday markabkii geeri badan amba goob weyn hadba sidaa u taqaanaan farxiyo waxaan jeclahay in ay nala wadaagi doonto qaybihii kaleeto oo aada u xasaasi ah oo aada u xanuun badan nala socda waa markii hadda iyo kow inta hore safarkooda normalkaaba inooga sheekeynaysa walaasheen farxiya waxaan hadda iyo qaybta saddexaad inoo bilaaban doonta xaaladda markabka iyo dhimashada dadka iyo dhibaatooyinka iyo dhacdooyinkii kale is-xooggii meesha ka dhacay farxiyo mar labaad iyo mar saddexaad aad baan kaaga mahad celinaynaa aniga iyo daawadayaashayda aad baad umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad ba farxiyo ay soo dhawow waa mahadsan tahay shacabka dhegeysanayeen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa إن شاء الله إن أدب ما سنتين ولا شيء فرحي قيبت هذا الستحات وحن دب وداون دورنا عم بقى نلقي سندورنا هذه الله إدمه إن ما لها صوص على وقيبت اللي بعد قيبتن كسر دوادا إد والبا أو دعوين كانوا عانوا كرتا إنه هاي سنة وحن لنا نجلس وحرير فيسبوك سهر قرن مسجل كيسة سهر قرن مسجل قرال إيسوقر سي أنكو فهمه aad baa umahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa daawadayaasha igu cusub janaalkayga ku cusub in ay subscribe-ka like-ta share-ka commentiga intaba noo saaraan soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa Sahra Qaran oo idin leh maxay ka dhacay dalkeenii dabaylihii colaadeed maxay sababeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.